ayadoo dhawaan ay ku dhawaaqday dowladda wadanka Holland in gabi ahaanba la joojiyay qaadkii soo gali jiray wadanka Netherlands sida weyn ay u isticmaali jireen Soomaalida ku dhaqan wadanka Netherlands ayaa qaar kamid ah Soomaalida aad u soo dhaweeyeen joojinta qaadka. Cabdalla Cali Cilmi oo muddo dheer qaadka cunayay ayaa u sheegay telefishinka qaranka inuu si weyn ugu faraxsan yahay joojinta qaadka isla markaasna asaga gabi ahaanba uu qaadkii joojiyay. Cabdalla ayaa waxa uu ka sheekeeyay dhibaatada qaadka uu leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed asagoo sheegay in qaadka uu keeni karo caafimaad darro, waqti lumin iyo alle ka fogaasho cabsidii alle ay dadku ka tagaan. wax hidda ay u lahaayeen weeyaan. Okay, wadankii haddii la joogo dhibtiisa waa la ogyahay, haddana dhibtiisa waxay nagaga daba timid wadanka Yurub. anigu waxaan leeyahay amba dadka cuni jiray waan ahaa muddo dheerna waan cunayay. waxaa jiri jirtay beriga anigu iskuulka ka baxay aabbahay wuxuu igula dardaarmay igu yidhi aba bahalka dumarna lagama noqdo dugaagna laguma noqdo. Okay, wadankii marka la joogay waxaa loo cuni jiray waqtigayagii annaka occasion amba maalin ay jirto munaasabad amba aroos jiro amba shir la leeyahay. laakiin bahalkii markii uu Yurub yimid sharaftiisii way dhacday, dhibtiisina way badatay. marka anigu waxaan saborsanahay amba aan kalsooni ku qabaa joojista laga joojiyay wadanka Holland yaa xoog iyo xoog bay ku mahadsan yihiin, waayo dhalinyaradii amba qoysaskii dib weyn ayaa ka dhacay. qoysas badan way ku burbureen, dhalinyarada in badan baa dhibaatooyin badan, physical problem, psychological problem, maskaxiyan, maadiyan iyo danihii oo ay xoog uga baxay, danahoodii xoog u qabsan waayay. marka anigu waxaan appreciate, anigu maanta nin weyn baan ahay oo waqtigii alxamdulillah dhalinyaronimada waan soo dhamaysanay, laakiin dhalinyarada waxaan kula talin lahaa joojinka la joojiyay jaadku waan support garaynaya. Nee, en die zullen er waarschijnlijk ook niet komen. Vanaf 1 juni zou kat al verboden kunnen zijn. Netherlands waxaana sabab u noqday burburka qoysas badan oo kadib markii odaygii reerka uu dayacay caruurtiisii oo uu saacado fara badan uu cuno qaadka, inta kale ee waqtigiisa ka harsanna uu jiifo asagoo aan wax war ah u haynin caruurtiisa. taasina ay dhalisay in qoyskii uu isaga tago uu qaadka u go'o. sidoo kale qaadka ayaa waxaa la sheegay inuu keeni karo dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah, gaar ahaan in qofka uu waxyeelo u geysto dhanka maskaxda oo uu qofka waasho. dowladda wadanka Netherlands ayaa ku sababaysay joojinta qaadka culeysyo fara badan oo ugu yimid dhinacyo fara badan oo ay ka mid yihiin qoysaska Soomaaliyeed iyo waliba wadamada dariska la ah wadanka Netherlands oo mamnuuc ka yahay qaadka oo kuwaas oo si sharci darro ah loo geyn jiray jaadka. sidoo kale waxa ay dacwado fara badan ka yimaadeen dadka cadaanka ama Netherlandka oo meelaha qaadka lagu iibiyo agdegan, kuwaas oo sheegay in qaadku uu wasakh fara badan uu wato. dowladda wadanka Netherlands ayaa waxaa la sheegay in ay canshuur ahaan ay sanadkii u heli jirtay 18 milyan oo euro, taasi oo ay sheegtay in gabi ahaanba ay ka tanaasushay oo ay ogolaatay cabashada ka imaanaysa dadka diidan qaadka. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow, telefishinka qaranka, Holland.